Soomaaliya oo qaadatay nidaamka federaalka tan iyo markii ay dhismeen dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe waxaa jiray kala aragti duwanaansho iyo madmadow arrimaha siyaasadda iyo awoodaha maamulka la xiriira. Shanta maamul goboleed ee hadda dalka ka jira waxa ay hogaamiyeyaashooda magaalada Kismaayo ku yeelan doonaan shir lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya, mana wanaagsana xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Waxaana jira cabsi laga qaba in maamuladu ay soo saaraan go'aaman caqabad ku ah dowladda dhexe. Xildhibaan hore Cabdibare Yuusuf Jibriil ayaa qaba in dowladdu ay ka leexatay hankii laga lahaa isla markaana iyadu ay abuurtay khilaafka iminka kala dhexeeya maamul goboleedyada. dowladdan runtii meeshii laga rabay inay horumar dalka gaarsiiso amnigii maaragtay samayso wax la yiraahdo cadaalad ay dalka ku maamusho ciidamo isku dhafoo federaal qorato dadkii yani hankii wixii shalay ay ku dhaarteen oo madaxweynuhu ku dhaartay oo ku yimid oo ummadda u sheegay wadadeedii in la maray yahay waxaad moodaa taas runtii inaan aad loo maray laga maray isla markiiba waxaa lagu bilaabay maamul goboleedyada dagaal lagu bilaabo haddii adiga iska soo qaad maalin kasta haddii iska ka dagaalamayo adigeena aad leedahay iska aaminayso war waxaanu sax ma isa keeda aad leedahay firq lagu soo ordahayo dee maalinta way soo dhiiraysaa marka dee maamul goboleedu haddii hadda go-aankoodu ka xasaasiyay shirkoodu kuwii hore ka xasaasan yahay anigu waxaan qabaa in la baday baan qabaa. Shirarka ay yeeshaan golaha iskaashiga waxa ay badanaa dareen ku abuuraan dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaase siyaasiga Cali Maxamuud Faarax Cali Saako uu qabaa in ay muhiim tahay in kulamada golahan ay yeeshaan diradda lagu saaro saxidda dhaliilaha ka jira maamul goboleedyada halkii culayska ay ku saari lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya. Anu waxaan dhihi lahaa intaysan dowladda federaalka iyo dhaliilaheeda aadin ayagu dhaliilahooda ha aada maxaa yeelay waxaan ognahay ragga hadda maamul goboleedyada madaxweynayaasha ka ah oo leadershipka u hogaamiya inaysan waajibaadkoodii ka soo bixin aan ognahay waxa weeye maamul goboleed walba shacabkoodii inay wax u qabtaan iska daayeen ayagaa dhexdooda isku mashquulsan. ilaa ay hadda ma cadda ajandaha shirka 3 bisha Kismaayo ay ku yeelanayaan madaxda shanta maamul goboleed ee dalka, balse dadka qaar ayaa aaminsan in shirkaasi uu noqon karo mid waxtar u leh haddii xubnaha golaha iskaashiga ay la yimaadaan tanaasul iyo in ahmiyadda la siiyo danaha guud ee dalka. Professor Maxamed Xasan Doob ayaa u arka asalka khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dastuurka kumeel gaarka kaasi oo u baahan in si degdeg ah loo qabyotiro. runtii dastuurku waa saldhigga muxuu ahay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkaaba ummaday ma shaqayn karto dowladnimana lagama shaqayn karo haddii aan dastuur sharciyada kale saldhig u noqdo haddii aan la helin sidaas daraaddeed dowladda federaalka waxaan ka codsanayaa in la dedejiyo dhammaystirka dastuurka wax waa la iska taban karayaa waxna waa la tabi karayaa waxna waa sibay noqon karaan laakiin waxaan rabnaa inaan Soomaalinimada la dhumin inaan dowladda federaalka mabaadiideeda lagu shaqeeyo in dowladdu iyo dowlad goboleedyadu ay garbaha isqabsadaan midnimo macna sameeyeen. golaha iskaashiga dowlad goboleedyada dalka waxaa lagu dhisay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose sanadkii hore bishii Oktoobar. shirkoodan ay ku yeelan doonaan magaalada Kismaayo lama oga waxyaabaha ka soo bixi doono, laakiin ma wanaagsana xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira. Cabdi Casiis Ibraahim Axmed, OK, TV-ga Universal, magaalada Muqdisho.